waqta ku saabsan soo qabashada ninkii baxsadka ahaa kaas oo ku eedeysnaa dilka iyo gubista gabadha uu qabay isla markaana urka lahayd oo arinteeda muddooyinkii la soo dhaafaba aad ay u qabsatay baraha bulshada dadka Soomaaliyeedna runtii aad ay uga xumaadeen ninkaasi waa la soo qabtay waxaan idin xaqiijinayaa in gacanta lagu soo dhigay sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago xogta ku saabsan ninkaasi soo qabashadiisa iyo halka laga soo qabtay halka uu ku sugan yahay ciidamada gacanta ku haya muuqaalkan si share garay la wadaag dadka Facebook kugu helinaya si xogtani shacabka Soomaaliyeed ay u gaarto maadaama arinta ninkaasi ay ahayd mid runtii aad shacabka Soomaaliyeed u taabatay dhibaato aad u xanuun badan la sheegay in uu geystay ama lagu eedeynayay maalmihii la soo dhaafay ayuuna ahaa baxsad aad ayaa hadalhayntiisu ay u taagneed deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa laga qabtay waliba qaybo kamid ah gobolka Mudug xogta sida aynu ku helnay waxa aan rabaa inaan guud ahaanba halkan kugu soo gudbiyo kulana wadaago xogtaasi ku saabsan soo qabashada ninkaasi cidda soo qabatay iyo sidoo kale cidda hadda gacanta ku haysa soo dhawaada muuqaalkan isgaarsiiya runtii dadku waa ay yar yihiin waxa aan sugaynaa inta dadku ay ka soo badanayaan maadaama xog xasaasi ah ay tahay haddana aan gacanta ku hayno halka laga soo qabtay iyo halka uu ku sugan yahay runaantii inta dadku ay ka soo badanayaan waxa aan rabaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxa si weyn looga hadal hayay baraha bulshada shacabka Soomaaliyeed aad ay ugu dhagtaagayeen dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay ama ballan qaaday in ninkaasi ciddii soo sheegtay xogtiisa abaalmarin la sii doono isla markaana cadaaladda la horkeeni doono runtii dadaal badan ayaa dowladda Soomaaliya ay ku bixisay dad kala duwan ayaa ka hadlay siyaabo kala duwan ayaa ka hadlay xitaa waxa jirta in arrimo qabiil meesha la soo geliyay oo dadkii siyaabo kala duwan uga hadleen si walba ay ahaato ma rabno inaan hadda ku sii dheeraano laakiin waxaan rabnaa inaan soo gudbino xogta ku saabsan soo qabashada ninkani muddo ayuu baxsad ahaa wixii ka dambeeyay markii falka uu geystay maadaama la ogsoon yahay in gabadhaasi uu gubay markii hore gurigeeda ku holciyay dhibaato badan ay soo gaartay isbitaal la jiifiyay kadibna muddo ay isbitaalkaasi ku jirtay ay geeriyootay laakiin waxa la sheegay ninkani falka markuu geystaba in uu sii baxsaday oo horeyba uu magaalada Muqdisho uga cararay haddaba halkee deegaanka lagu qabtay waxa lagu qabtay deegaan lagu magacaabo Gabdhoole oo u dhow isla deegaanka Caad oo ka tirsan gobolka Mudug waxa gacanta ku dhigay ciidamada macawisley ee deegaanadaasi ka howlgala waa xogta sida aynu ku helnay baxsad ayuu ahaa wali ma cadda in dad kale ay la socdeen oo ay fakinayeen iyo in uu kaligiis ahaa laakiin waxa ay u badan tahay in koox isaga gacan siinaysay lala qabtay oo runtii ay ku gacan siinayeen sidii ay maaragtay u faki lahaayeen oo cadaaladda ay uga faki lahaayeen laakiin waxa lagu guuleystay in ninkaasi gacanta lagu dhigo runtii shacabka Soomaaliyeed qof waliba oo arintani maqlay waa ay damqasay waana uu ka xumaaday waxa ayna dadku dalbanayeen in cadaaladda la horkeeno ninkaasna la soo qabto dadkuna ay ka qayb qaataan sidii loo soo qaban lahaa runtii waa ay ku mahadsan yihiin ciidamadaasi deegaanka ama ciidamada macawisleyda oo gacanta ku soo dhigay sidoo kale hadda waxa uu gacanta ugu jira hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan xogta waxaynu ku helnay ninkaasi in hadda lagu hayo wisil oo ciidamada nabad sugidda ee wisil ku sugan ay gacanta ku hayaan ninkani waxa lagu magacaabaa Said Cali Macalin Daawud ayaa lagu magacaabaa runtii dadku ay ka dheeraysan yihiin halka uu ka soo jeedo ama beesha uu ka dhashay iyo maaragtay meesha uu asal ahaan intaasi way ka dheeraysan yihiin ma rabnaa hadda inaan waqti ku lumino laakiin muhiimaddu waxa ay tahay ninkaas oo gacanta lagu soo dhigay sababtuna waxa ay tahay ninkan arrintiisu waxa ay noqotay arrin aad xasaasi u ah oo runtii xitaa siyaabo kala duwan looga hadlo oo si weyn saddexdii ama afartii maalmood ee la soo dhaafay aad dadka Soomaaliyeed ay u hadal hayeen falka uu geystana uu noqday mid runtii aad looga warwaro ama looga fajaco maadaama uu xaaskiisii isagu uu qabay uu gubay nolosha uu ku gubay sidoo kale ay xaamilo ahayd ama uur ay lahayd oo cunuga waliba uurka ay u siday isaga ay u siday sidoo kalena ay caruur agoon ah korsanaysay runtii
arrintaasi dhibaato weyn ay bulshada Soomaaliyeed ku noqotay welina lama aasin oo frontier ay ku jirtaa markii ay geeriyootay la geliyay eheladooduna waxa ay dalbadeen ama gabadhaas eheladeeda in cadaaladda la hor keeno ninkaasi marka hore horta marxuumadaas in Rabbi u naxariisto aynu ugu duceyno maadaama markii hore ay ahayd qof nolosha la hardamaya caruur awoona korinaya sidoo kalena hadda ninkaasi iyadoo waliba xaamilo ah oo cunug kale uurka ku sida nolosha uu ku gubay ciqaabna uu dunida ku tusay in Rabbi u naxariisto marka hore aynu u duceyno eheladii ay ka baxdana samir iyo iimaan uu ka siiyo ninkii haddii hadda gacanta lagu hayana runtii cadaaladda ayaa la keeni doonaa sidaasi ayaana arrintaasi ay ku fududaa doontaa amaba lagu dhammayn doonaa maadaama ninkii gacanta lagu hayo oo hadda aynu xaqiijinayno xogta sida aynu ku helnay gacanta in lagu soo dhigay isla markaana ciidamada hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee wasiil ku sugan gacanta ay ku hayaan kadibna cadaaladda la geey doono ma ogin in Muqdisho loo dhoofin doono oo la geey doono maadaama falku halkaas uu ka dhacay wayna u badan tahay iyo in meel kale lagu geli doono kiiskaasi laakiin si weyn ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa ay u hadal hayeen arrintani ku saabsan dilkaasi foosha xun oo ninkaasi uu geystay iyo baxsashada uu baxsaday oo runtii aad u gilgishay shacabka Soomaaliyeed qalbiyadooda iyana kiisas kale ayaa dhacay oo ay kamid tahay Qoryooley in sidaas oo kale nin haweenay uu qabay uu ku jarjaray ama uu ku dilay ninkaasi gacanta ayaa lagu hayaa hay'adaha amniga ay gacantooda ku jira waxaan rajaynaynaa gabadhaasi iyana sidaas loo geystay iyana in cadaalad ay heli doonto oo eheladeeda ay heli doonaan sidoo kale arrimaha noocan oo falalka argagaxa leh bulshada Soomaaliyeed muddooyinkii la soo dhaafay oo ay ku soo badanayeen dhacdooyin kala duwan oo runtii aad looga xumaado dadka Soomaaliyeedna ay ula fajacaan ayaa dhacay oo taniba ay kamid tahay in qof dhan nolosha lagu gubo qof dumar ah baasiin lagu bilbilo qol lagu soo xiro halkaasi lagu dhibaateeyo deedna ay u geeriyooto runtii soo qabashada ninkani shacabka Soomaaliyeed kaalin weyn ay ku leeyahay waayo dadku waxa ay wada jeclaayeen ama ay dalbanayeen sidii gabadhaasi marxuumada ah iyo ehelkeeduba cadaalad ay ku heli lahaayeen waxyaabaha la siyaabana waxa kamid ah in gabadhaasi agoon ay korinaysay agoontii oo markii hore aabba la'aan ahayd haddana hooyo la'aan ninkaasi uu dhigay oo runtii ay ahayd qofkii nafsadiisa ay ku aamintay marka run ahaantii aad ay murugo u noqotay waana wax aad hadda loogu farxo in ninkaasi gacanta lagu soo dhigo maadaama xaaladdu ay ahayd mid aad u adag isla markaana eheladii cadaaladda ay dalbanayeen shirar jaraa'id ay qabteen kulamo badan ay socdeen arrinta ama falkanina uu ahaa mid aad dadku ay runtii uga caroodeen marka loo fiiriyo sida wax ay u dhaceen qofka ay wax ku dhaceen iyo dadka maaragtay maatida ah oo dhibaatadaasi loo geystay hooyadaasi carruurta korsanaysay iyo runtii dadka maaragtay kale oo ay ku xirneed oo ay u xamaalaysay ama ay maaragtay iyadu ay u dhaqdhaqaaqaysay marka runtii ninkaasi gacanta ayaa lagu hayaa halkan ayaan ku xaqiijinaynaa xogta sida aynu ku helnay aaga caad ayaa laga qabtay sidoo kalena wasiil ciidamada ku sugan ee hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka ayaa gacanta ku haya xogta sida aynu ku helnay runtii bulshada Soomaaliyeedna warkaasi aad ayay u soo dhaweeyeen markii ay maqleen gabi ahaantoodba waana ay ku farxaan run ahaantii waana wax maaragtay aad loo bogaadiyo in tallaabadaasi dadka deegaanka waliba ciidamada macawisleyda ay qaadaan haddaba sidee dhibaatooyinka noocan ah looga hortagi karaa oo lagu jooji karaa inkastoo wixii dhacaya ay waxa weeye 1000 sano kaawo yihiin oo wixii qadarani aysan ahayn wax la baajin karo laakiin ficilada noocaas oo kala ah oo haweenka Soomaaliyeed iyo gabdhaha amaba la qabo loo geysanayo oo lagu dhibaateynayo sidee looga hortagi karaa qof kasta aragtidiisa ha ka dhiibto qaybta faallada ama commentiga ha nagula wadaago waxyaabaha looga hortagi karo ama sida looga hortagi karo dhacdooyinka noocaas oo kala ah oo waliba ragga maaragtay axmaqiinta ah ay u geysanayaan haweenka Soomaaliyeed haweenka qaarkood xitaa waxaa jirta in muddooyinkan dambaba falal anshax darro aan iraahdo amaba kale oo runtii aad looga yaqyaqsoodo ay sameynayeen inkastoo hadda dil aysan weli gaarin iyaga oo rag ay guriga ku xiranayeen ku jir dilayeen muuqaalo ka duubayeen guud ahaanba waxaasi markii la isku soo ururiyay ama dilka ahaato ama dhacdooyinkan kale oo hadda ugubka ahaato oo waxa weeye dadkii dhexdooda ku soo badanaya
waxyaabahaasi ka hortag badan ayay u baahan yihiin. qof kastana sida looga hortagi karo halkan ha nagula wadaago, maadaama waxaan ay yihiin wax musiibo ah oo bulshadii dhibaato ku ah, oo runtii aynu dhihi karno waxyaabaha horseedaya waxaa ka mid ah isticmaalka social media iyo dadka maaragtay hab qaldan ay u adeegsanayaan oo dhacdooyinkii si degdeg ah loogu faafinayo. sidoo kale waxyaabo meelo kale ka dhacay dadkii ay arkayaan, oo wadamo kale iyo waxyaabo ka dhacay dadkii markay arkaan ay maaragtay halkan usoo waaridayaan amaba ay maaragtay dhibaato iyagii gacmahooda ay isugu geysanayaan. runtii wacyigelin badan iyo waxayna u baahan tahay in bulshada laga wacyigeliyo waxaas oo dhan oo dhacaya, maadaama bulshadii dhibaato ay ku tahay. qoys dhan caruur dhan oo agoon ah oo intaas cunug ah hooyadii u xamaalaysay, ninkii ay nafteeda ku aamintay in uu barqadii gubo oo weliba si arxan daran u gubo, iyadoo uur leh cunugii uurkeeda ku jiray iyadiiba ay isla dhintaan. runtii waa naxdin iyo maaragtay uur ku taallo, waana midda keentay bulshada Soomaaliyeed in ay ka hoyan waayaan kana harsan waayaan, maadaama dhibaatadaasi ay qof waliba ku dhici karto ama hooyo waliba ay ku dhici karto ama waalid kasta ay ku dhici karto. haddaba muxuu dareemayaa waalidkii gabadhaasi dhalay iyo sidoo kale caruurtii ay dhashay? waa maaragtay lama qiyaasi karo waxa ay dareemi karaan maadaama dhibkaasi loo geystay. waxaanu leenahay rabbi samir iyo iibaan ha ka siiyo eheladii marxuumadaasi gabadha lagu magacaabi jiray Luul. caruurtii ay ka tagtana iyagana kulleyto dad Soomaaliyeed ayaa gacanta ku qaban doona. waxaan rajay doonaa in insha Allahu tacaala noloshooda shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ay kafaalo qaadi doonaan. laakiin arrimaha noocan ah oo dhacaya waa in laga gaashaanto oo sidii looga hortagi lahaa looga gaashaanto ayaan isleenahay. wacyigelin ayaana bulshadu u baahan yihiin. runtii warbaahintu qayb ayay ku leedahay in wacyigelintaasi la sameeyo si waxaan looga hortago. culimadu qayb ayay ku leedahay, dowladdu qayb ayay ku leedahay, gudaha shacabka Soomaaliyeedna kaalin ayay ku leeyihiin sidii waxyaabahaasi la isaga kaashan lahaa dhacaya oo runtii u daran qalbiyada shacabka Soomaaliyeedna dhibaateynaya. in qof nolosha lagu gubo, in maaragtay qof siyaabo kale loo dhibaateeyo, waxyaabo badan ayaa dhacaya. marka guud ahaanba waxaasi waxa ay rabaan ka hortagid iyo in laga gaashaanto oo waxa weeyaan la noqdo dad kasoo horjeeda waxa noocaas oo kala dhibaatooyin kale oo laga hortagay ayaa jira. in maaragtay cadowgu oo shacabka Soomaaliyeed duuleysto oo gumaado ayaa laga hortagay, oo argagixisadii ayaa lagala dagaalamay, oo runtii meelo badan hadda lagu guuleystay in shacabkii waxa weeye laga dulqaado dhibka ay ku hayaan. tanina runtii waxaan u malaynayaa haddii loo istaago inaysan ka dhib badnaan doonin dagaalka maleeshiyaadka Al-Shabaab. dhibaatooyinka shacabka loo geysanayo, hooyooyinka loo geysanayo, caruurta loo geysanayo, culimada loo geysanayo, marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo la xiriira arrimaha bini'aadanimada in laga hortago isla markaana loo gaashaanto sidii maaragtay dadkana looga wacyigelin lahaa loogana hor istaagi lahaa kuwa sameynaya oo damiir laawayaasha ah. runtii aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa in gacanta lagu dhigay eedeysanahaasi baxsadka ahaa. dabcan cadaaladda wixii oo ka helo ayuuna leeyahay. waa mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan inta hadda nagu soo biirtay oo aan horey ula socon ujeedkeenu oo ah soo gudbinta xogta ku saabsan soo qabashada ninkii baxsadka ahaa isla markaana gabadha xaaskiisa ahayd ku gubay magaalada Muqdisho, isla markaana nafsada dhaafiyay kadibna u soo baxsaday deegaanadan Galmudug. waxaana laga qabtay aagga caad ayaa laga qabtay deegaan gabdhoola lagu magacaabo. ciidamada deegaanka ee macawisleyda ayaa qabtay, waxa ayna ku wareejiyeen ciidamada hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. ma cadda inay dad kale la socdeen oo isaga fakinayay iyo in uu kaligiis ahaa. intaba xogtaasi iyo waxyaabaha kale ee soo kordha halkan ayaan kugula wadaagi doonaa, kuguna soo gudbin doonaa. muuqaalkan sii share gareeya si xogtani shacabka Soomaaliyeed u gaarto.